halkan waxaan isugu nimiday mudana gudoomiye in mataqaana kormeerkaada aan mataqaana warbixin ka siino xarunta baadi qabadka dawladda hoose xamar halkan waxa ku xireysan xoolihii laga soo qabtay degmooyinka gobolka Banaadir intaan hawsha bilawnay oo gudoomiyaha gobolka amarka ka bixiyay in degmooyinka iyo ciidanka ilaalinta deegaanka isla shaqeeyaan waxaan soo qabanay 556 neef aan soo qabanay oo isugu jiro yar iyo waaweyn waxna waa ganaaxnay waana loo digay dadka iska lahay waxna maxaa ay tahay sheeg waa ku jiraan hadda waxa ku jiro arkaysa xogaa yara ku jirto inta badneedna waa la ganaaxay marka waxaan rabnaa mataqaana inaan ku soo dhaweyno arintaas aad u timiday kormeerkeeda u timiday warbixintu waa asaas waxaan ku sii doonaa qoraalkii aan ka qornayo iyadoo qoraal aan ku sii doonaa waxaan ganaaxnay iyo waxa say kala ahaayeen 556 neef siday kala ahaayeen iyadoo warbixinaha qoran aan ku sii doonaa hadii aan yiraahdo waxaan rajaynaynaa in hawsha bilaabay joogtaa waxaan rajaynaynaa in macnaha dib loo bilaabo oo si fiican mataqaana magaalada looga shaqeeyo si ay u hagaagto bilicda magaalada una fulo awaamirta madaxda gobolka iyo tan qaranka insha Allah waxaan rajaynaynaa gudoomiye ku soo dhawaaw xarunta baadi qabadka ciidanka ilaalinta deegaanka si aad mataqaana taladaada iyo tusaaladaada aad noo siiso insha Allah Assalamu warahmatullahi wabarakatuh inta kadib maanta waxaan joognaa xarunta baadi qabadka ee gobolka Banaadir taasoo ahaa kormeerkeena kuurgelida xoolaha baadida lagu soo xareeyay ee la keenay xaruntan ina ogaano xaaladooda inta ay ku jiraan gacanteena gobolka Banaadir waxaan iska xil saarnaa inaysan daayac ayna u dhiman waxaan ka taxadirnaa in caafimaadkooda iyo raashinkooda waxaan u sameeyay dhaqaatiir soo baratay xoolaha veterinary oo u diyaara inay ogaadaan xaaladooda caafimaad inta kadib waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka iska leh xoolahan ee caadiystay inay ku soo daayaan magaalada ay dhex maraan inay ka taxadiraan haddii aanaga soo qaban oo ciidamadeena ay soo qabtaan waxay mutaysanayaan ganaax ma yeeli doono in caasimadii Soomaaliya oo inay xoolo ay ku socdaan meelihii ugu fiicnaa anagoo ka duulayna bilicda iyo soo celinta aan doonayno inaan u ekaano caasimadaha kale ee adduunyada runtii ma aha wax la aqbali karo in qof xoolo u leeyahay oo ku soo daayo magaaladan ma aha Muqdisho magaalo daaqsin loo tago oo coos ay ka baxaan oo meel macnaha baadiya ma aha waa caasimadii Soomaaliya xoolihiina inay haysatiin ayaan ila faraynaa haddii aad hayso weydaan waxaa mutaysanaysiin ganaax marka koowaad marka labaadna waxay noqonaysaa in lala wareego xoolahaas maadaama aad xafido weydaan ma yeeli karno ubaxyadii loogu talagalay iyo geedihii aan ku beernay magaalada Muqdisho oo aan doonaynay in macnaha bilicdii ay qayb weyn ay ka ahaadaan in geel ambalo inay ari daaqan ma aqbal karno way dhacday mar iyo laba mar saddexaadna runtii ma yeeli doono ka taxadira arrimahaas xoolihiina xafisa sidaas ayaan rabaa inaan ku wargaliyo meeshaani maalmo kooban ayaa la doonayaa in lagu haayo xoolaha intii ay iimaanayaan dadkii lahaa laakiin macnaheedu ma aha meel xoolaha si rasmi ah ay macnaha in lagu haayo aad u maasatiin wada shaqayn wacan